kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa qaliiji waa casharadeenii ku saabsanaa Dodge for Anfänger jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ku guda jirnaa weli heerka koowaad ee luqadda ee A1 daawasho wacan video ku hore waxaa kusoo baranay sida uu u shaqeynayo modal verb maanta videogeenu wuxuu ku saabsan yahay sida uu u shaqeynayo adjective of Soomaali waxaa lagu dhahaa sifo waxa uu sifeynaya nominka magaca ayuu sifeynaya sida uu ogaatid inuu sheega adjective yahay in kale tood waxa qasab ah inaad isweydiisid su'aasha ah wie ist etwas waa sidee sheega markaas ayuu ku soo baxaya inuu sheega adjective yahay iyo in kale tood waxa jira ereyo qaar oo lagu garto inuu sheega adjective yahay tusaale ahaan groß weyn klein yar langsam tartiib schnell dhaqsi alt duq young yar falsch qalad richtig sax gesund caafimaad krank xanuun teuer qaali billig raqiis oder billig faul damin schlau nin xariif ah guud fiican schlecht xun jumlooyinkan kasoo diyaariyey si aad si fiican ugu sii fahantid das Haus ist groß das Haus waa nominka waa magaceena ist groß waxa uu sifeynaya marka guriga wuxuu yahay guriga waa weyn yahay oder klein waa yar yahay das Auto ist langsam gaarigan ama gaariga waa tartiib yani schnell ma ahan ama das Auto ist schnell saarta u isticmaali kartaa der Mann ist alt ninka waa duq ninka oo nomin ah waa duq yani wuu sifeynaya ninka wuxuu yahay ayuu sifeynaya waa yar yahay waa duq waa weyn yahay waa cad yahay waa madow yahay adaa saa rabto isticmaali karta laakiin waxa uu sifeynaya nominka meesha noogu qoran die Antwort ist richtig jawaabta waa sax ich bin krank aniga waa xanuunsanahay das Auto ist teuer gaariga waa qaali die Studentin ist schlau gabadha ardayda ah waa xariifad yani waa gabadh active ah der Film ist gut filimka waa wanaagsan yahay or der Film ist schlecht filimka waa xun yahay iyo kuwo kale todo kala badanaa jiraan kaliya intan kaliya ma ahan laakiin als A1 ahaan waxaa marka hore kugu filan inaad baratid bis sida ay wax u sifeynayaan in adjective-ka oo sifeynayo nominka oo nominka bilowga yahay adjective-kana gadaal dambe oo ka imaanayo waxaa jirta marka verb kaliya ma ahan ayadoo xataa isticmaali kartaa kalarada ah tusaale ahaan madowga waxaan waa madow waa gaduud waa gelb waa cadaan waa green waa orange waa blue yani ayada xataa ka mid tahay tusaale ahaan tusaale qabo das Auto ist schwarz gaarigan waa madow gaariga waa madow adaarati isqood vice gelb waxa rabta ku isticmaali kartaa sentence ka ku isticmaali kartaa marka adiga isku daytid sentence kalena abuuratid in aad shay kale aad soo qaadatid oo aad kalarada galgalisid oo aad isku daytid inaad kaliga isticmaashid intaas ayaan kusoo gabagabeynaa qaybteena adjective-ka haddii aad wax soo qabto ama haddii aad qalad ku aragtid mar walba ila soo xiriiri kartaa inta kuliga kuman kale ku xisbadan kulmi doono anigoo qaliiji ah fi amaanillah